iskuulka maxamuud axmed cali asal ahaan waxaa la dhisay sanadadii u dambeeyey ee dowladda militariga markii ay meesha ka baxdana waxay noqday meel oo xero ciidan oo noqday waqti kadib niman isxilqaamay oo aqoon-yahano ah oo uu ka mid ahaa doctor Baadiyo iyo doctor Cali Sheekh ayaa waxay ka shaqeeyeen inay ka dhigaan xaruntii koowaad ama meeshii lagu aasaasay jaamacadda Muqdisho hase yeeshee nasiib darro dhacda darteed waxaa dhacda haddana nimankii askarta iyo qoryaha ku heesta iyo wax magaratadii mar kaleeto ayay jaamacaddii waxay ka hor istaageen inay si sax ugu shaqeyso dadkii meesha waa ka eriyeen nasiib darro markaas sooma bixin ama lama helin dad wax garta oo nimankaas qoryaha wata ka joojiyo oo yiraahdo goobtan waa goob waxbarasho yiraahdo oo u kaalmeeya aqoontii waxbarashada lama helin iskuulka sidaas dhibaato ku soo gaartay waa looga tagay ilaa yawmina haadan iskuulku waa sidiisi marka waxaa nasiib darro ah laakiin dadka deegaanka degan ama xaafada degan inaanu wili ka soo bixin dad wax garta oo yiraahdo war meeshan waxay ahayd goob waxbarasho ahayd maadaama aan deganay xaafada ubadkeena waxaan rabnaa in wax lagu baro cidaysa kama soo bixin waxa kale oo dhibaato ay ka taagan tahay Soomaalida waa ognahay hadda xilligan la joogo siyaasadeeda waa ka xunnahay waa la beeliyay markii la beeliyay dadka deegaankaas iyo ama xaafada oo ku yaalo dad baa siyaasadda ku matalo darajo janan ku qaato oo safiir ku noqdo oo gudoomiye gobolka Banaadir ku noqdo oo xildhibaan ku oo wasiirkan ku noqdo oo magacoodi ku shaqeysta oo maqaam iyo xoolaba ku sameynaa isla markaasna aan daneynin marka meesha waxaa ka jira marka deegaanka oo aan dadkii deganay oo aan wacyi lahayn dadkii mas'uulka ka ahay oo maqaam iyo magac ku sameysanay dadkan meesha degan oo aan dadka dantooda aan ka shaqeynay marka waa disaster ama waa masiibo qaran oo meeshaas ku habsatay dabcan meeshaas kaliya maaha meelo kale oo fara badan ayaa sidaas la mid ah laakiin kan waxaan soo qaadanaynaa tusaale in 30 sano ka bacdi iskuulkii maxamuud axmed cali ee 30 sano ka hor ay ubad Soomaaliyeed wax ku baran jireen inuu maanta yahay qashin qub uu yahay oo waliba uu yahay iskuul ku yaala magaalada Muqdisho oo aanu ahayn iskuul jira mataqaana qandale iyo laas qori iyo aan jirin marka la joogo madaxtooyada Soomaaliya waa loo jeedaa marka waa nasiib darro oo dalkan iyo dadkan ku habsata waa saasaan dhihi karaa